السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada markale barnaamijyadan idinku talagalay maanta waa Arbaca. barnaamijkan waa kii saddexaad iyadoo hore aad u soo daawateen barnaamijyadeena koowaad iyo labaad. taariikhdu waa 29 bisha May sanadka 2024. qodobada barnaamijka saddexaad ee caawan idinku hayo waxaa kamid ah Israa'iil oo sheegtay inay gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen wadada isku xirta xuduudda Falastiin iyo Masar ee la yiraahdo Philadelphia, halka oo muddo 3 toddobaad ay ka dagaalamayeen. muqaawamada oo war ka soo daba saartay oo leh waxay qabsadeen ma lehe dagaal culus ayaan kula jirnaa, nagta ayaan ka gelinaynaa, hadeer hoobiyaal ayaan ku garaacaynaa. waxaa sidoo kale wararkaan idinku haya kamid ah Israa'iil oo tiri godad ayaan ka helnay Philadelphia oo ilaa Masar ku furan. Masar oo durbaba soo hadashay oo tiri waa beenteed Israa'iil, wax ka jira ma jiraan godadkaas ay sheegayso. haddaba sidee wax u jiraan? sheekooyin la yaab leh oo ku saabsan dagaalkii ugu dambeeyay saacadihii la soo dhaafay ka dhacay Rafax ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinku hayaa aqalka cad ee waddanka Mareykanka ayaa wuxuu leeyahay waxaan wadnaa hindise cusub oo xabad joojina ka bilaabanaya 6 toddobaad marka dambana ku dhamaanaya xabad joojin daa'ima. haddaba hindisahaas waa hindise noocay ah? Xamaas hadee ma ogolaan doonaan? haddaba qodobadaas iyo wixii warar ay kusoo kordha inta aan barnaamijka ku jirno ayaan idinla wadaagi doonaa. kulan wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena aan idinku talagalay maanta Arbaca, waana barnaamijkii saddexaad. qodobo muhiim ah ayaa noo soo socda. marka hore waxaan ku bilaabayaa aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu leeyahay waxaan wadnaa qorshe cusub oo xabad joojina maxaabiistana la isku dhaafsanayo. qorshahan waxaa la sheegayaa in uu ka bilaabanayo 6 toddobaad oo xabad joojina, sidoo kalena uu soconayo ilaa ugu dambeynta xabad joojin daa'ima laga gaaro marinka Gaza. inta muddadaas ay socotana la isdhaafsan doono maxaabiista iyo dadka la kala haysto. haddaba waxaa la isweydiinayaa xilligan oo xasuuq uu ka socdo qaybo ka mid ah Gaza, gaar ahaan Rafax oo Israa'iil wax xasuuqayso, Xamaas ma aqbali doonaan in wada hadallo noocaas ay galaan? haddaba wararkii ugu waaweynaa ee laga qoray ayaan idin hayaa. telefishinka Al-Carabiya ee waddankaasi Saudi Arabia laga leeyahay ayaa wuxuu leeyahay aqalka cad ee Mareykanka wuxuu sheegay Arbacada maanta ah in Mareykanka uu doonayo xabad joojin 6 toddobaad ah in laga hirgeliyo Gaza, kaasoo lagu bedelanayo in la isdhaafsado maxaabiis. haddaba Al-Carabiya waxay leedahay xogta ay heshay safqadan ama heshiiskan isdhaafsiga maxaabiista ayaa wuxuu yahay mid bilow u ah in xabad joojin 6 toddobaad ay socoto, kadibna loo gudbi doono xabad joojin daa'ima. sidoo kalena la doonayo in muddada ugu horeysa ee 6 toddobaad ah ay Xamaas iyana sii dayn doonto 20 ka mid ah maxaabiista ay haysato oo nool, iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka ay gacanta ku haysay ee dhintay lafahooda iyaduna inay wareejiso, iyadoo tartiib hawshu sida ay ku socon doonto. waa tahay marka waxaa leeyahay hawshaasaa Mareykanku wadaa, laakiin warar soo baxay waxay leeyihiin Xamaas ma aqbali doontaa? dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin suuragal ma ah. Xamaas hore waxay u sheegtay inaysan wada hadallo galaynin ilaa inta Israa'iil ay wax duqeynayso, dadka laynayso. midda kalena Israa'iil waxay ku haysataa heshiiskii hore inay ka baxday. haddaba aqalka cad sidee isu waafajin karaa howlgalkan ay Israa'iil wado iyo wada hadalkan uu doonayo inuu halkaa ka hirgeliyo? xaaladaas marka dad badan waxaa uga jira madmadow siduu ku hagaagi lahaa. haddaba waa arki doonaa sida looga falceliyo maalmaha soo socda qorshaha aqalka cad ee Mareykanku ay wadaan ee ku saabsan arrintaas. waxaa noo soo socda weli Israa'iil iyo Qassam oo isku dhegan, laakiin markan waxaan u gudbayaa Israa'iil iyo Masar ayaa isku dhegan. markan sheeka yaab la waaye. Israa'iil waxay yiraahdeen
waxaynu godad ka helnay xuduudka u dhaxeeya falastiin iyo masar deegaanka la Philadelphia oo maalmahan 3 toddobaad ay ku dagaalamayeen marka hadda waxay yiraahdeen gabi ahaanba Philadelphia waa la wareegnay waa qabsanay markaan qabsanay waxaan ku aragnay godad ilaa masar ku furan macnaheedu muxuu yahay masar hub laga soo gelin jiray gasasaasa lagu soo gelin jiray oo dahsoon waaye macnaha waxa lagu dhaga hadlaa masar markiiba iyaduna way booday waxay leedahay waxa nimankan ay sheegayaan waa beentood wax ka jira ma jiraan haddaba marka sheekooyin isdaba yaala oo yaab leh ayaan halkan idinkaga soo gudbinayaa haddaba wararkii ugu dambeeyay ku saabsan dagaalka iyo wixii soo kordhay Al Jazeera waxay leedahay ciidanka gubeystaha Israa'iil waxay sheegeen inay la wareegeen oo ay qabsadeen deegaanka la yiraahdo Philadelphia hase ahaatee muqaawamada Falastiiniyiintu waxay sheegeen in arrintaanay waxba ka jirin oo ay beegsadeen ciidanka Israa'iil ee ku sugan dhinaca waqooyi koonfureed ee Rafah oo markaa Philadelphia ay ka mid tahay ayna markaa duqeyn culus u geysteen haddaba markaa warku waa sii socday waxaa leeyahay ciidanka Israa'iil waxay doonayaan oo ay sheegeen in godad ay halkaa ka heleen godadkaasuna ay u furan yihiin dhinaca masar waayahay marka waxaa leeyahay ciidanka Israa'iil waxay yiraahdeen Philadelphia meesha la yiraahdo kulligeed waa qabsanay 3 toddobaad oo dagaalku uu socday kadib laakiin muqaawamadii ka daba laalaashoonaysa waxay leedahay waa beentood nagta ka gelinay dhagahan ka garaacnay marka arinta masar waa u imaan doonaa laakiin hadda waxaan u gudbayaa muqaawamada Falastiiniyiinta oo iyaguna war ka soo saaray arintan waataay Al Jazeera markale waxay leedahay kooxda Kataa'ibul Qassam ayaa waxay sheegtay inay duqeyn xoog leh u geysteen ciidanka gumeystaha iyagoo isticmaalay qoriga hoobiyaha loo yaqaano waxayna ku duqeeyeen Rafah ayay ku duqeeyeen marka waxay leeyihiin nimanku waxay qabsadeen ma leh meesha dagaal socda xabadda waa la isku kalkalayaa barnaamijkan kii ka horeeyay koobaad waxaan ku soo qaadanay in askar badan laga dilay oo si fiican loo galay oo loo garaacay marka waxay leedahay Israa'iil Philadelphia waa qabsanay muqaawamaduna waxay leeyihiin waa beentood waxay qabsadeen lama arkay leeyihiin sheekadaas marka iyaduna waa sheeko wareersan oo maaragtay labada dhinacba ay isku dhagan yihiin dhanka masar u imaanayna marka masar maxay leedahay masar waa la eedeeyay waxa lagu yiri meesha xuduudda kala qaybisa maaragtay masar iyo falastiin meeshaas godada ku aragnay godadkaasuna masar xaggeeda u furay macnaheedu waxa waaye horaadii kugu sheegay masar hub ka soo gelisa meesha oo dagaalka qayb ka ah waaye waa tahay marka waxaan leeyahay masar warbixin amni oo ka soo baxday waxay sheegaysaa Israa'iil in ay markaa ka been sheegayso in maaragtay godad ay ka heshay dhinaca masar oo ayna markii ay ku fashilantay military ahaan been ayaa ka soo hartay leeyihiin haddaba sida laga soo xigtay warbaahinta masaarida qaarkeed waxay sheegeen iyagoo soo xiganaya masdar dhinaca ammaanka ah oo maaragtay sareeya ayaa waxay sheegeen inaysan wax raada lahayn hadalka ka soo yeeray qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil oo sheegaya in la helay godad markaa xuduudda masar iyo Gaza isku xiraya kaasoo dhinaca masar u furan waa tahay masar waa qeelinaysaa waxay leedahay waxaas wax ka jira ma jiraan yahuudina waxay leedahay godada meesha ku aragnay ilaa masar u furan marka halkaas waa la isku dhagan yahay dhibaato ka taagan masaaridu waxay leeyihiin waliba hadalka masar waxa ku jira sheeko cajiiba ku jirta waxay leeyihiin nimankan markay ku fashilmeen military ahaan inay shaqo qabtaan markaas anaga xagxaganayaan goda inta ka helay godka de ka helay ma keenaan ma soo bandhigaan waxaas waa beentooda dheen wax ka jira ma jiraan ee nimanku waxay ku fashilmeen dagaalka Rafah
waa dhagaa laga garaacay leeyihin masaaridii iyo yuhuuddii halkaas waa isku haystaan way isku dhegan yihiin sheekadaas iyaduna halkaasaan bal kaga gudbaynaa waxay ahayd sheeko wareersan qaybta kale ee barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa khasaaraha ciidanka Israa'iil soo gaaray saacadihii lasoo dhaafay ayaa aad u kordhay barnaamijyadan kuwii ka horreeyay waxaan sheegay ilaa 4 qof inay sheegteen ay dhimashadu maraysay waa kaas hadda marka saacadihii ugu dambeeyay caawa waxaan leeyahay tiro kale oo askarta ka tirsan ayaa si xun ugu dhaawacantay dagaalada socda haddaba Al Jazeera ayaa qortay warbixin ay leedahay isbitaalka la yiraahdo Soroka oo Israa'iil ku yaala ayaa waxaa la gaarsiiyay 5 ka mid ah ciidanka Israa'iil si ay markaa halkaa uga helaan daweyn waxaana la sheegay in dhaawacyadoodu ay yihiin kuwa aad khatar u ah maamulka isbitaalka la yiraahdo Soroka Israa'iil ayaa sheegay wuxuu ku yaalaa deegaanka la yiraahdo Bi'r Sab'a in 5 ka mid ah ciidanka Israa'iil halkaa la geeyay si halkaa loogu daweeyo waxayna ku soo dhaawacmeen dagaalo culus oo dhacay shalay oo talaado ahayd ayaa halkaa la geeyay oo lagu daweynaya waa tahay marka wararka dhaawacyada iyo waxa ka dhiyo way iska socdaan khasaaraha waa arkaysaan waayahay marka waxaan u gudbaynaa maxaa socda hadda caawa xagee qoraxda ku dhacday xagee lagu kala hoyday haddaba wariyaha telefishinka Al Jazeera Anas Sharif ee ka soo waramaya dhinaca Jabaaliya wuxuu sheegayaa in dagaal culus uu dhacay maanta halkaa si fiican la isugu helay wuxuu sheegay in qaar ka mid ah ciidanka Israa'iil oo taangiyo wata ay isku dayeen inay gudaha xaafadaha Jabaaliya soo galaan laakiin wuxuu sheegay in iska caabin xoog leh ay la kulmeen diyaarado drone iyo diyaarado kale ayaa duqeymo ka geystay xaafado kala duwan dad rayda baabuur ambalaasa sidoo kale baabuur dad rayda leeyihiin ayaa duqeymaha loo geystay waxayna ka dhaceen Jabaaliya iyo Rafax iyagaba duqeymo ayaa ka dhacay dhinaca Rafax waa arkayseen Al-Qassam waxay leedahay waxay qabsadeen Philadelphia male ee dagaal culus socda hoobiyaal ayaa la isku asqaysiinayaa dagaal culus socda waa taa maanta idin sheegay in askar gurigoodii lagu dumiyay inta galeen miinooyin loogu xiray askar Yahuuda oo markaa askar fara badan halkaa looga dilay kuwa kalena looga dhaawacay waxaa soo kale la sheegayaa in dagaal culus oo isna ka socdo dhanka bari xaafadda la yiraahdo Ashawka oo ay Israa'iil hore u sheegtay inay iyagu gacan ku hayta deegaankaas la wareegeen laakiin waxaan leeyahay dagaalo ayaa ka soo cusboonaaday maanta dhammaan wararkaas waxay ahaayeen dhinaca Rafax inkastoo Israa'iil ay leedahay guul weyn ayaan ka gaarnay Philadelphia ayaan qabanay oo waa kala jarnay Masar iyo Falastiin meesha u dhaxaysa askara noo joogta laakiin muqaawamadu waxay leeyihiin wali halkaa faanoole fari kama qodna oo maaragtay dagaal culus ayaa halkaa ka socda barnaamijkeennii habeennimo qodobkaas ayaa ugu dambeeyay haddaba haddaadan daawan barnaamijyadaydii 1 iyo 2 oo iyaguna macluumaad aad u xiiso badan xambaarsan iyo wararkii ugu dambeeyay iyaguna waa soo daawanaysaan haddaad daawatayna waad ku mahadsan tahay fariin waxaad hayso noogu soo reeb qaybta commentiska barnaamijkana like garay oo share garay haddaad naga daawanayso YouTube iyo Facebook labadaba sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-ka Facebook-na follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamid ah ku kulmayno akhyaaray meel kastoo aad joogtaan haddii Allah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo